subax wanaagsan dhageystayaal dunida meel walbood inaga maqlaysaan anagoo idin jecel iyo idinkoo noo hamoon qaba u diyaar garooba la socoshada barnaamijka subax wanaagsan oo qayb ka ah barnaamijyada arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya aynu ku iftiimino isla markaana ummadda Soomaaliyeed aynu kula wadaagno akhbaaraadka kuwada ugu xiisaha badan hadiyo jeer barnaamijka subax wanaagsan waxaynu ku iftiiminaa marxaladaha dalka uu marayo inta kaliya ma aha xaaladaha guud ee siyaasadda dalka hadallada kulkulul oo inta badan ay mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ay hawada isku marayaan waxaad dhageysataan oo aad maqashaan had iyo jeerna aanu diiradda saarnaa si ay dadkana uga ogaadaan wax weyn oo in badan oo kamid ah dadkuna ay jeclaysan karayaan waxa kale oo xusid mudan oo had iyo jeer aynu barnaamijyadeena kala duwan aynu ku soo bandhignaa waxa kamid ah waad ogtihiin dawladda federaalka Soomaaliya waxa jira marxalado iyagu u gaara oo in muddo dadku intooda badanina aynan aad uga warhayn waxyaabaha ugu xiisaha badan ee aad maqli doontaan kuwada ugu qadarinta badan ayaanu had iyo jeer ummadda Soomaaliyeed la wadaagnaa waxaanu xoog saarnaa oo soo bandhignaa waxyaabaha ugu xiisaha badan waqtiga iyo marxaladaha guud ee ka jira geyga Soomaaliya u diyaar garooba barnaamijkii subax wanaagsan subax wanaagsan dunida meel walbood inaga maqlaysaan waa jimco 7 bisha 9 2018 qodobada saaka barnaamijka subax wanaagsan aad ku maqli doontaan waxa kamid ah xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu heshiisiyo dawladaha kala ah Djibouti iyo Eritrea isagoo aanan awoodin inuu heshiisiyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya xildhibaan ayaa weerar waxa uu ku qaaday madaxweynaha Soomaaliya wuxuuna yiri dadkii mas'uuliyadda u dhiibay oo yiri heshiisiye Eritrea iyo Djibouti waxay iloobeen buu yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi inuu san Farmaajo iyo xukuumaddiisuba aysan heshiisi karin madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya waxaad dhageysan doontaan hadduu alla idmo weerarka uu ku qaaday xildhibaanka madaxda qaranka iyo qaabka ay ku timid waqtigan oo rajaynayo in badan oo kamid ah dadku inay wax weyn ka ogaan doonaan u diyaar garooba barnaamijkii dhammaystiran markale meel walbood inaga dhageysanaysaan subax wanaagsan xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa weerar ku qaaday madaxda qaranka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna xildhibaan ku tilmaamay in loo gafay jiritaankii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo adeegsanaya bog uu ku leeyahay Facebook isla markaana qayb ka ah bogagga arrimaha siyaasadda ku falanqeeyo ayuu xildhibaanku waxa uu saaka la wadaagay bulshada Soomaaliyeed qoraal ee runtii aad uga duwan
qoraaladii lagu yaqiinay xildhibaanka hubaal weeye xildhibaanku waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta farakutiriska ah ee aan ku qanacsanayn siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalka ku hogaaminayo isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa haddaba xildhibaanka ayaa saaka soo qoray dowladda Soomaaliya ayaa heshiisiinaysa Djibouti iyo Eritrea waa wax lagu qosla ayuu yiri maxaa yeelay dowladda Soomaaliya gaar ahaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu heshiisiin waayay madaxda maamul goboleedyada isagu madaxweynaha u yahay wuxuu yiri dadkii doortay oo yiri waa inuu heshiisiyaa Eritrea iyo waliba Djibouti waxaan rabaa inaan weydiiyo buu yiri sababta Djibouti iyo Eritrea uu madaxweynuhu qayb uga qaadan karo isagoo aanan awoodin Axmed Madoobe iyo Cabdiwali Gaas inuu heshiisiyo wuxuu kaloo yiri xildhibaan Axmed Macalin Fiqi waqtigan muuqata inaysan suurtagal ahayn buu yiri madaxweynihii damcay haddaba sidoo hadalka u dhigay madaxweynaha dalka Eritrea ayuu ka weynaysiiyay Jubbaland ayuu yiri iyadoo dhulka Eritrea iyo dhulka Jubbaland aynan kala ballaarnayn wuxuu tilmaamay in dhulka Eritrea waqtigan markii ciise la eego una la mid ahayn waa sidoo xildhibaanku hadalka u dhigay dhulka Jubbaland oo hadda uu madaxweynaha ka yahay أحمد مدوبي وحويري مدحونا هالدولة الصومالية وقت كانوا هشيسين ويا جبلان يولي بوتلان حدي ما أنت اللي يرادو مدحونيه أودي سوي قالوا يسي إنه مدحنا ما مر قبل ديدا احترام وسيو سيدو احترام وسين كلام اللي تري يجيبوتي مدحونا هالدلك وحويري اللي تري أيو كوين سي جبلان مهمة قارة أيو نسي اللي تري وحنا مرحبية وحبت كساري مدحونا اللي تري وحنا دور بدي إنه قعدت مدك وخبصة رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد هدي مدحوينها إلتريا يا رئيس الوزراء إثيوبيا وكقيمة بالناضي شنت مدحوينه كسماية جوجا ميسن إسوافقين أيو يري هذا الكهري لو قلت المام الجري مدحوينها الصومالية إنه حد يجر كجعلي هي هناك يدولد وناك دلك الصومالية إنه كهر مريم مرولبا دلالك عن صوماليا وقت كان صريو راد منا عن كل حين حلبان أحمد معلن فقي أيات المامي وقت كان إن أبي أحمد يولبا مدحوينها إلتريا ونركقي مبنين وسيدو حلبان كو أميسية هي إن لغهر مريرو كنت المامي وحقنا شنت مدحوينها مام القبلادية دالك كجرا قرآن كو أحمد معلن فقي بوكي سكوسو قري أيات المامية إن وقت جروسن مرنا بكوكنا عصرين حلبان أحمد معلن فقي إن دولة فدرال كصوماليا يحوق صارتو هشيسين تجيبوتي إلتريا يضو أي كسماية جوجان مدح عن كوكنا عصرين حابكا أي دولة فدرال كوحو ودو هذا بتلمامها موضع أي قيب كنقرية وقت جاني سياسة مرحلة هدالك ومريو هذا بحلبان أحمد معلن فقي وحا اسكو وافقوا oo isku keeni layahay in waqtigan ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Eritrea sacabada la qabsado la marxabeeyo xabadka la saaro halka Axmed Madoobe iyo waliba Cabdiwali Gaas Waare Xaaf iyo Shariif Xasan la cayliyo isla markaana aanan wax dara waqtigan dawladda Soomaaliya ay siinin waxa uu yiri ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo miyaysan ka wanaagsaneyn Eritrea iyo Itoobiya inay ka soo dhaweystaan maamulada dalka ka jira oo waqtigan aan ku qanacsanayn siyaasadda dalka ay ku maamulayaan labada mas'uul ee ugu sareysa haddaba hadalka xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa bulsho fara badan waxay iska weydiin karaan su'aal ku aadan ma mudan yahay madaxweynaha federaalka in la yiraahdo wuxuu heshiisiin waayay madaxda maamul goboleedyada markaasuu door biday inuu heshiisiyo Djibouti iyo Eritrea xildhibaanka hadalkiisa in badan oo kamida shacabku qaarna way ku taageeri karayaan qaarna way kaga soo horjeedaan waana suurtagal dadku inay isweydiin karaan miyuuna ra'iisul wasaaraha Itoobiya ka wanaagsaneyn in lala saaxiibo Axmed Madoobe Cabdiwali Gaas Waare iyo Xaaf iyo Shariif Xasan maxaa yeelay iyaga ayaa dalka Soomaaliya kamida haddaba xildhibaan Axmed Macalin Fiqi sidee buu kula muuqan karaa salaamu calaykum Hello. Hola. مين مقشع؟ سفيا. ولا صدق أركتدا هذا أحمد معلن فقي وحو يري مدحوينها الصومالية إنه كقيب قالوا هشيسين تجيبوتي إلتريا وحكا جوا نكسرين إنه هشيسيو شنت مدحوينها سياسة دي سكوكا عصرين. بحي كل موقت هذا الكلام أحمد معلن فقي. aad iyo aad baan ku salaamaya marka labaadna aad buu u maadsan yahay xildhibaanku ereyga uu yiri ama waxa waaye hadalka uu soo jeediyay
waana go-aan hadal saxsan waaye boqolkiiba boqol sababtoo ah waxa waaye in la heshiisiyo horta Soomaaliya khilaafaadka ka taagan in horta markii waxa weeye la meel dhigo oo la heshiisiyo oo macnaha waxa weeye maamul goboleedyada iyo madaxda federaalku ay go-aan isku raacaan oo go-aankaas uu yahay go-aan waxa weeye aan waxba ka soo noqon oo dib aan wax uga soo noqon markii xal Soomaaliya loo helo buu waxa weeye macnaha waxa weeye dawladda Soomaaliya ay xal kale dawladda kale xal u geli kartaa laakiin madaxdii Soomaaliya oo maanta iskhilaafsan in dawladda kale la aado waxay ila tahay mid qaldan ba oo macnaha sida oo macnaha xildhibaanku uu sheegay inay ay ka saxsanayd waayahay laakiin wuxuu isbarbar dhigay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi wuxuu yiri dawladda federaalka Soomaaliya raallinka ma aha sidoo hadalka u dhigay raallinka ma aha inay la saaxiibto madaxda maamul goboleedyada laakiin waxa ay diyaar u tahay inay la saaxiibto madaxda geeska Afrika yaa muhiimsan in ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea la soo dhaweysto iyo in la soo dhaweysto shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada dalka ka jira waxa mudan in la soo dhaweeyo shanta maamul goboleed ee dalka ka jira sababtoo ah dadkan la soo dhaweynayo oo macnaha geeska Afrika sida Ethiopia iyo Eritrea waxa horta ka haboon in la soo dhaweeyo oo xiriir lala sameeyo oo macnaha waxa weeye aad iyo aad loo soo dhaweeyo madaxda maamul goboleedyada sababtoo ah madaxda maamul goboleedyada oo xalkooda la helo waayo Soomaaliya meesha ay ka degnaadahay waa maamul goboleedyada xalkooda ilaa la helana Soomaaliya ka bixmayso xalaantan maanta ay ku jirto sababtoo ah ayagii oo iskhilaafsan dad kale ma hagaajin karaan waayahay dawladda federaalka muhiimad gaar ah ayay u tahay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa falanqaynaysa watii madaxweynuhu uu qayb ka noqday heshiiskii awoodda geeska Afrika marka maxay kula tahay adiga ahaan in Asmara ay kaga qiimo badnaato Kismaayo yaa se muhiimsan Asmara iyo Kismaayo in dawladdu ay tixgelin siiso ilaa Kismaayo waxa ka socda kulanka iskaashiga madaxda maamul goboleedyada Asmarana waxa ka socda kulanka iskaashiga geeska Afrika madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yaa u muhiimsan iskaashiga geeska Afrika iyo iskaashiga gobolada dalka Soomaaliya iskaashiga geeska Afrika intaan la gaarin waxa ka hormarsan oo in laga hormariyo ahayd iskaashiga ka socda magaalada Kismaayo marka waxa waaye mar walba waxa saxsan in wadanka waxa ka jira siyaasad qalafsan wax la yiraahdo oo macnaha waxa waaye dhinaca u janjeerta oo aan la fahmi karin mararka qaarkood marka waxa ka hormarsaneed in laga hormariyo iskaashiga maamul goboleedyada ee ka socda waxa waaye in la sameeyo oo Kismaayo macnaha waxa waaye laga hormariyo waayahay laakiin in badan oo kamid ah dadka indheeya siyaasadda Soomaaliya kuna qaraacsan xukuumadda federaalka waxay aaminsan yihiin dadka Kismaayo ku shiraya inay yihiin dad aanan horumarka dalka ogolayn dad aanan ogolayn dawladnimo wadaaga dad aanan ogolayn jiritaanka qarannimada Soomaaliya adiga oo shacabka Soomaaliyeed qayb ka ah ma aaminsan tahay Axmed Madoobe inuu qaran dumis yahay ma rumaysan tahay Xaaf inuu yahay nin aanan horumarka dalka ogolayn sidoo kalena ma ka dhaadhacaysa Cabdiweli Gaas inuu yahay nin jiritaanka qarannimada Soomaaliya ogolayn oo aan kala jeedo shanta madaxweyne inay qaran dumis yihiin halka ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea ay yihiin dad jecel qarannimada Soomaaliya waxa waaye waa la oran karaa qayb kamid ah madaxda gobolada waa qaran dumis qaybna lama oran karo marka waxa weeye waxa la oran karaa ninka la yiraahdo Cabdiweli aad iyo aad buu uga soo horjeedaa qarannimada Soomaaliya sababtoo ah waxyaabo badan oo macnaha waxa waaye lid ku ah jiritaanka qaranka baa lagu hayaaba oo dhacdo wadanka sida sababtoo ah waxa sabab ah inay soo gasho shirkadii hayd DB World waxyaabo badan oo yiri waa qabanaya oo aan la qaban waxa kale sameynaya doorasho macnaha waxa waaye doorasho qof iyo cod ah oo iyadana dib loo dhigayo waxa lagu sameeyay marka aad iyo aad baa macnaha waxa waaye loo oran karaa way ku jiraan qayb kamid ah oo macnaha waxa waaye hadda aan laakiin inta aan ku magacaabi karin dawladda waxa la oran karaa waa dad macnaha wadaniyiin ah oo macnaha waxa waaye ka shaqeeya wadaninimada iyo amniga wadankana aad macnaha uga qayb qaata
aad iyo aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaashu wuxuu ahaa dhegeystii ugu horreeyey weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii subax wanaagsan waxaanu iftiiminaynaa xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha isagoo aanan awoodin inuu la heshiiyo madaxda maamul goboleedyada ayaa la yiri ka qayb qaado heshiisiinta Eritrea iyo Djibouti haddaba ma mudan yahay madaxweynaha federaalka in waqtigan fursadda Eritrea iyo waliba Djibouti ayuu heshiisiinayaa iyadoo dhanka kale aysan jirin heshiis uu leeyahay madaxda maamul goboleedyada aragtida dhageystuhu waa sideed u aragtaa hadalka ka soo yeeray Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya Axmed waxa uu boggiisa Facebook soo qoray dowladda Soomaaliya ayaa heshiisiinaysa Djibouti Eritrea waxay ugu noqotay ayuu yiri la yaab iyo amakaag maxaa yeelay dowlad goboleedyada shanta ayay heshiisiin kari waayeen oo ay la heshii waayeen sidee bay ku dhici kartaa buu yiri in dowladda Soomaaliya Eritrea iyo waliba Djibouti ay soo dhawaysato wuxuu kaloo tilmaamay madaxweynaha dalka Eritrea ayuu ka weynisiiyay Jubbaland iyadoo balaca dhulka Jubbaland iyo dhulka la yiraahdo Eritrea aynan aad u sii kala ballaarnayn muhiimadda uu siinayo ayuu yiri madaxweynaha Eritrea iyo waliba ra'iisul wasaaraha Ethiopia miyaysan ka wanaagsanayn inuu shanta madaxweynaha Kismaayo jooga uu la kulmo markaa waqti siiyo dhiirigelin siiyo isku soo dhaweeyo siyaasadda dalkana uu isku keeno haddaba Kismaayo iyo Asmara shacabka Soomaaliyeed iyo dan ugu jirta ma Asmara ugu jirta mase Kismaayo waa fikirka xildhibaan Axmed Macalin Fiqi qof kasto inaga midana aragtidiisa xor buu noqonayaa subax wanaagsan Hello صباح wanaagsan هاي مين مقشع أواكم مغلا بلوانو هاي صدق ورقتي هذا سداد ورقتي هذا الك أحمد معلم فقي كحماي مين مقلا ساعة كحماي دقيستاسي إمام مقلو لكن هو مهتسين هاي سيدا قروح ذا بدن ودمع سنة إنه فكر كيسون لو ذا أقول لكن وقت جاء يسيو وايي ما دام أنت بدنا يسن صورة قلوا وحين قار كم يدري استياشة أو إنترنت كقاركود وكل يدن كرو صورة قلنا كذي كرو وقت جاء إنه مقلوي قفك كل حاجة يسينية السلام عليكم السلام عليكم بلوان وكان قاعد يسولو ورقتي هذا كبيري أحمد معلم فقي وحيري اسمه وافق يسو إن مدحونها الصومالية وهشيسية إليتريا جيبوتي يسقوا عن هشيس الله هين شنت مدحونها كجرا دلك الصومالية كارهان مدحضة مامور قبلية أيو كريجي ده سيداد ورقتي هذا كحلبان كسو يري أرت بلوان أرت آد بأما تهاي كلي لاب وانو ما سنتهاي برنامج قيمة قيالة قبل وحكي قاتي أرت أنا شخصي هاي الشعب الصومالي هاي مفهمتي ما شاء الله ماذا أرت كل ممكن فهم الإنتاجيين وحاهاي أبكى لو والد ماشي أو عرورت ولادة الشيء مفهمتي هاي صومالي نما تحلق اللي جوا حامد حوينه محمد عبد الله فرمانتو هانو ملانس معناها dadka qaar ay dhageystaan waxa jeclaan lahaa fikradeeda macna loo fikradiisa soo gaadla fikradiisa soo gaadlay faati fiqi waa shakhsi ani amal Soomaaliya maanta waxa u baahan tahay madaxda dalka hogaaminaysa go'aanka soo saaray ee laga dambeeyo hadalkooda raaxatay qalad ku socdaa ee sax ku socdaa waayahay qalad iyo saxba madaxda hal qadariyo waa waana aad u wanaagsan waa waana tixgelin iyo qiimo leh laakiin su'aal ayaa ka horeysa wuxuu aaminsan yahay Axmed Macalin Fiqi adna laga doonayaa bal inaad aragtidaada ka dhibato si dowladnimada iyo shacabkaba la isbarbar dhigo maxay kula tahay Asmara waxa ka socda kulanka lagu heshiisiinaya geeska Afrika Kismaayana waxa ka socda midnimada gobolada dalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya yaa u muhiimsan iskaashiga geeska Afrika iyo gobolada dalka Soomaaliya fikradda adla Soomaaliya adii fikradda waxaa muhiimsan labadaas xaqiiqada dhabta markaa tan Afrika muhiimsan maamulka walaayada muhiimsan waxa xaqiiqa ku sheega balwan maamulka walaayada mar waxay soo istaagayaan meel ay ku dhuntaan ay weynay hadda waxa shaqada wada hawlka ay wataan hal wadan Kenya hadda Nairobi Kenya waxay taagan tahay inay ku soo birta Kenya tugtamayso
maamul goboleedyada hadda shariif sakiinkan iyo axmed madoobe qaska ee wadaya cabdulkaas ilaa 40 bilo oo dhiman bis oo harsan wixii ka dambeeyay qadka waa ka baxay Jubaland banaanka soo istaagaysana shariif sakiino hawadaana lagu baarna الأردن شرفت كانوا دولته شقام لوك مال بنانا كسوراسنا ما فهمت ما ملكلوات هذا مال أدلى بون يبقى يا واحد جرء كهيا هالمرة الله هدلي هالمرة واحد وفهم وين واحد كامينو تفرعوا قلت يو صح أنا كل كرينا عدول الكاس يو نكل يلا جبلان مدحوينا أحد بدوي maamul goboleedyada hal mar si fiican loo hadlay inta halka maqashay sharaftikin hadda hadalada badan waa yaray safarada dibadda aad jireen waa yaray amarka hoogaasna qaskan bis oo shirkanta isku imaanay dawladda ka warqabin bis iyo boodo iyo qalaasi ay wadaan maalin hatta waqti dheereen hatta sanadka ay dhamaan gudood ala xisaabtama waayahay maxmata marka adiga waxa kula muhiimsan in gobolada dalka la iska dhaafo oo aan waxba laga soo qaadin oo muhiimad gaar ah la siiyo wadamada geeska kuwada yaala oo mandiqadan hadda midoobaysa Eritrea iyo Djibouti iyo Soomaaliya taaba kula wanaagsan ayaan u fahmay in lala heshiisiyo ama lala heshiiyo oo hadalkooda la dhageysto Puntland Jubaland Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo waliba Hirshabelle in hadalkooda la dhageysto waxa ka wanaagsan in Asmara iyo Addis Ababa la tixgeliyo saas baan u gartay sabtiyan wili bala hal waxa kugu dara Soomaaliya ma aqsane burbur ku jirtay ee dhawaatay colaadi baabay dhowr iyo 20 sano hay ayadoo ku jirta maanta waxay ka shaqaysiinaysaa qaaradda Afrika ee heshiis military door muhiim oo lagu faanay ka qayb qaateen waar maxamed farmaajo shaqada oo qabtay maanta caalamka adduunka dhan caalamka biyaabay iska dhaaf shacabka Soomaaliyeed faatay Soomaaliya iyadoo burbur ku jirta maanta waxay qayb wax ka qaaday Ethiopia maxalla Djibouti iyo Eritrea isku keento ma faatay kulli maanta shalay hada dhageysanaysa maanta baniiska hada la socotay marka dawladda Soomaaliya waxay ka gudubtay Soomaaliya maanta dhaxda heshiisa heer waxay gaarsiisay qaaradda Afrika inta محلا إثيوبيا إريتريا يا جيبوتي أبرتان إلى هشيان ما شاء الله أدو ما سني هاي دقيستاس وحو يري قبلات الدلك وحا كمهمسن جيسك أفريكا أسمرا إيو أديس أبابا كمهمسن أيو يري وحو كلاو تلمامي dawladdu inay guul weyn ka gaadhay madaxda geeska Afrika wuxuuna yiri danta Puntland iyo Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle iyo Galmudug nooga jirto waxa ka qaalisan danta geeska Afrika aad buu dhageystaas u mahadsan yahay barnaamijka aad dhageysanayso waa subax wanaagsan subax wanaagsan dhageystay qadka ku xiga ayaa siinaya halow subax wanaagsan waan soo dhawo waragtidaada Axmed Macalin Fiqi hadalka ka soo yeeray sideed waragtaa السلام عليكم ورحمة الله guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waan salaama waxaan kala halkaan si gaar ah u salaama wariye Cabdullaahi Balwaan aad iyo aad u mahadsantahay barnaamijkan oo doodan oo aad furto وأحمد فقي وحرب واحد دبا وحقيقة وكحضلي كنت بربلام كي جودي أيضا حللين إن أرمد بدل له أرضه وحنو أرجنا قف جودي على جودي هذا على حللين أو بربلام كتاعي هذه أو كر لجس الصراحة واحد متريزه لكن السؤال ماشي تاجنا وحي تحي مدحوينه وحا او سو دويي مدحوينها Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in geeska Afrika uu gacmaha isqabsado Eritrea iyo Ethiopia iyo Soomaaliya heshiis dhaqaale iyo mid abni ayaa la galaya madaxweynuhu marka Asmara iyo Kismaayo wuxuu u arkaa horumarka dalka inay ku jirto in Asmara uu heshiis la galo adaan waxaan ku weydiinayaa marka in la heshiiyo afarta madaxweyne ee maamul goboleedyada dalka ama shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada dalka iyo in la heshiiyo Ethiopia iyo waliba Eritrea danta dalka keebay ku jirtaa danta dalka waxay ku jirtaa in priority koowaad la siiyo dadka gudaha in la koow la heshiisiyo priority koowaad in la heshiisiyo markaas kadib waxa uu gudbitaa East Africa wadamada bariga Africa markaas uu gudbi karta
aad buu dhegeystayaashu mahadsan yahay waxa uu qayb ka yahay aragtida barnaamijka subax wanaagsan haddaba dhegeystayaasha imika qaybta YouTube channelka la yiraahdo Saadaal Production ayaad iga maqli kartaa si toos ah Saadaal Production ayaanu barnaamijyada doodaha ugu talagalnay codsiyo fara badan oo naga soo gaaray dhegeystayaashana waxay yiraahdeen channelkeenu ku shaqeynayna barnaamijyo kala duwan ayaa lagu wada shubaa waxay yiraahdeen dooda meel gooniya noo dhig si ay dadka uga faa'iideystaan haddaba barnaamijka dushiisa waxa ku qoran Saadaal Production وهالك أتكلم يجي كرتو برنامج كا هذا بدودا ساكا صباح ونكسر سارة وحيد تهاي دولة الصومالية وحي هشيسين يسا جيبوتي إلتريا حلبان أحمد معنا الفقي أي وحنا ليا بكنت المامي مدحوينه الصومالية أو أنا أودين إنه هشيسيو شنت مدحوينه ما بالقبل ده دلكا سيداب وقيم قادن كرا أيو أحمد أميسي هاي هشيسين تا جيبوتي إلتريا وحنا وحنا ليا بكنت المامي إن مدحوينه محمد عبد الله فرماجو كلك أسمرة وكجعلي هاي إنه تجوك إنه كلك كسمايو وكجعلي هاي كلك أسمرة وحتى قلنا يا ميري إنه أسمرة هشيسيو وضمن إثيوبيا يا الصومالية هلك أو كسماينا دونيو وقت والبين سمهمة جارسين حتى بس ده ما دواركتها هذا الكسو يري أحمد معلن الفرقي قفك كحيجا صباح ونكسن ونكسن ولا لساتها في عن بقول كبا بقول كبير أركتي هذا أحمد معلن الفرقي هذا الكسو يري سداد وركتها أحمد معلن الفرقي بين مش يقول لك لا أعرف إنه هذا هي محاكو عديك كرتها madaxweyne farmaajo aan de ku cadeynaya wuxuu عليه farmaajo in Eritrea aado ismaayana uu aadi waayo ma kasbeenayna haye balta inoo sii bayani walaale macaana horta horta adduunyada ma aragtay isag madaxweyne horta farmaajo ma ahan laakiin waa maqaarsaha Soomaaliba wax u maleeyay inuu nin yahay oo madaxweyne yahay waa gartay laakiin dad badan kana sii badan yahay haye marka madaxweynuhu aduu Eritrea aado iyo aduu Abiy Ahmed la kulmo iyo aduu meel kasta aado anaga horta madaxweyne nooma ahda Soomaaliland naxano haye waayo isaga maqaamkiisa dawladnimo iyo sharaftii iyo dadku waxay u ogaayeen dhan isaga iskaga ciyaaray madaxweynuhu laakiin madaxweynaha dawladda Soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in heshiiska wadamadan iskaashiga Eritrea iyo waliba Ethiopia ay aad uga muhiimsan tahay in lala heshiiyo oo iskaashi ay dawladdu la samayso shanta madaxweyne ee kala ah Waare Xaaf عبد الولي قاس شريف حسن إيه أحمد مدوبي مركا يا هذا كله مهم سن إلتريا يجيبوتي يشنت مدحوينه ما من قبل هذا الدلكا أنا قلت هذا كلام هذا شنت مدحوينه على مهم سنة وايو إلتريا محايا إلتريا اللي هدان أفريقيا صوماليين هوانا قنا إلتريا وضن كوقف فخر بدن الدفوي هاي farmaajo u raadinay Eritrea iyo inuu aad maamul goboleedyada inuu la hadli waayo farmaajo oo dhihi waayo warheed saana iga khaldantiin aniguna saana idinka khaldanahay inay wada hadli waayaan farmaajo iskale farmaajona meeshan wuxuu u imaaday been bay ahayd farmaajo habeen baa madaxiisa madaxweyne noqday magaciisa noqday kaliya haye marka farmaajo heed cidna ma matalo Soomaalidu samatali karin madaxweynaha yagan anaga ناقص على الحمد لله مع سنة طويلة في قفكي نال وهلي يا مدحميني سا إن عم تسكور بعض الحين النقطة وما صمت هاي فكر كاجا كوجارك أنا وكاجا مهلنية هذا دو ما صمت هاي ولي واحد نجي سنة يسان برنامج كي الصباح ونكسن قفك كحجة حلو صباح ونكسن صباح وناكسن بروان جمعة وناكسن ضمان أمة الصومالية وعيد السلامي أو غادي ما شاء الله وركاتنا نمتها من لمدة أيام هودا كوسو مرينا أحمد معلن فقي أو برلمان كفدرال ككتيرسن وحو يري مدحوينها الصومالية أو أنا أودن إنه له الشيء شنت مدحوينه إمام القبلة دلك أيام ما أنت دم أي يري لتري جيبوتي إنه هالشيء مركا اسمه وافق يسأيو أمسيه هاي حي كلها هذا aniga ahaan ra'yigayga haddaa soo koobo waxaan isleeyahay madaxweynuhu warku waa nabadoon Afrika ma la dhihi karo maanta madaxweyne Soomaaliyeed uu gaafay waa nabadoon Afrikaana masalan waa gartay marka arrintaas waxaan macallin fiqo ku soo qoray bartiisa Facebook aniga fikir waafiyay marka wax macnaha soo kordhin mayso madaxweynuhu waa madaxweyne Soomaaliyeed ummadda dawlad goboleedyada waxa weeye ayaga laftirkooda waxa weeye dantooda un bay meesha ka adkaan ayagana waxa weeye kulli haddii dantooda meesha ka adkaan waxa weeye ayaga laftirkooda nabadda heshiisku iska qaadanayaan marka
madaxweynuhu waa madaxweyne nabadoona waa madaxweynaha waxaa la dhihi karaa maanta Afrika ugu nabadoonsan sababtoo ah wadamo badan ayuu hadda isku soo dhaweynayaa dawladkiisii oo cilaaqaadka mar hore kala qaybsay waa gartay marka Asmara iyo Kismaayo waa labada la isbarbar dhigayo marka madaxweynuhu nabadoonnimada uu Asmaro ka raadinayo miyaysan wanaagsaneyn inuu Kismaayo ka raadiyo ما waa lagu imaanayaa ayadan waa la raadinayaa dalku waxa waaye madaxweynayaashan hadda anigu aqaan gudoomiyaasha gobolada marka waxa waaye dantooda kaliya waa rag dalleeya oo dantooda kaliya inay fiirsanaan rabo oo danta shacabka ka hormariyo dantooda marka waxa waaye dan siyaasad baa wadan mooye waxa waaye wax dan ummadda Soomaaliyeed ma ayaan laakiin ayaga laftirkooda insha Allah dantooda haday arkaan ayaga laftirkooda waxaan isleeyahay federaalka way leeshiinayaan waayahay waxaa tiri shanta madaxweyne dan ley weeye oo dantooda ay eeganayaan marka Eritrea iyo Ethiopia danta ay iyagu leeyihiin oo adigu aaminsan tahay maxay kula tahay danta Soomaaliyeed danta bacdaha oo siyaasadda sarwaa dibadda waa dan macnaha oo wadamada inay isdhexmaraan isdhexgalo shacabka la isdhexgalo ganacsiga la isdhexgalo siyaasadii wadamada dhan saas oo la isku furmo marka waxa waaye arrimahaas ayaa nooga muhiimsan arrimaha gudaha sababtoo arrimaha gudaha waa wax yar oo Soomaaliya way isfahmi kartaa laakiin arrimaha dibadda markii la isku maayo arrimaha gudahana la xalin karaa marka ugu dambeyn marka dalka iyo dadka in heshiis uu ka dhaco Asmara iyo in uu heshiis ka dhaco Kismaayo yaa u wanaagsan dalka iyo dadka Soomaaliyeed arrimaha dibadda marka la soo haliyo siyaasideeda dhanba Soomaaliya waxa qasaya dadka waa arrimaha dibadda maaha arrimaha gudaha waxa waaye waa wax yar oo la isku dirayo marka arrimaha banaanka marka iska soo halisid ayaa arrimaha gudaha xalin kartaa marka banaanka ayaa muhiimada aad u dhageysta Soomaaliya wuxuu yiri arrimaha dibadda ayaa ka muhiimsan arrimaha gudaha wuxuuna yiri in shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada leeyihiin halka ummadda Soomaaliyeed dantooda iyo horumarkooda ay ka fikirayaan madaxweynaha Eritrea iyo kan Ethiopia wuxuu yiri danta ummadda ay ka fikirayaan shanta madaxweyne maamul goboleedyada ma doonayaan danta ummadda waa fakarka isaga u gaarka ah wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijkii subax wanaagsan qof kasta oo kamid ah shacabka Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay aragtidiisa inuu nala wadaago sidoo kale waxa uu fikradiisa ku gudbi karaa isagoo xor u ah barnaamijka subax wanaagsan oo qayb ka ah barnaamijyada aynu arrimaha siyaasadda ku falanqeyno waxa kale oo xusid mudan in barnaamijka subax wanaagsan qof kasta oo na dhageysanaya uu xaq u leeyahay inuu fikrkiisa dhiibto managerta haba yaraatee qof looga soo horjeedo ama lagu mucaaradayo fakarka isaga u gaarka ah maxay kula tahay dhageystay hadalka ka soo yaray xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ee ah maxay kula tahay weeyaan aragtidaadana adiga xor ah waxa uu xildhibaanku aaminsan yahay farmaajo shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada dalka ayuu la heshiin waayay maxay tahay sababta uu Asmara kulan lagu heshiisinayo Eritrea Djibouti uga qayb qaadanayo miyaysan kaga muhiimsanayn inuu shanta madaxweyne isaga hogaaminayo uu la heshiiyo qof kasta aragtidiisa xor ayuu yahay salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة sidoo kale soo dhaw aragtidaada maxay kula tahay hadalka xildhibaanka ka soo yeeray ee ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intuu Eritrea iyo Djibouti heshiisiin lahaa waxa kaga wanaagsan inuu shanta madaxweyne la heshiiyo oo israaca gobolada dalka ay mid noqdaan marka bal fikirkaaga ku darso niyo taarin baa jirta qofkii hagaajin waayo gurigiisa ma hagaajin karo guri kale tusaale adigoo hagaajisan way sariirta hadaa dhahayd sariir qofka hagaajinaya ma ahan muhiimada yarkii naga horeeyo kale oo arrimaha gudaha waxa ka muhiimsan arrimaha dibadda hadii aad sariirta hagaajin weysid aad banaanka hagaajisid wax macquul maahan qof hagaajin karo ma jiro marka arrimaha marka eegtid waxba ku qasbaya inuu meesha tago waxba ku qasbaya oo qolooyin kale baa ka dambeeya mid arrimaha gudaha Soomaaliya niyo Soomaaliga ku fashilmay ninka Farmaajo iyo tiimkiisa meelaha qaar oo dhisayaan laakiin arrimaha siyaasadda arinta ay ummadda isku keenaan ummadda midayaan way ku fashilmeen tusaale hadda Eritrea Djibouti heshiisinaya waxa kaga waanad Puntland Soomaaliya heshiisinaya marka aadayo Eritrea iyo maxaa la sheegay Djibouti wallahi ninka marka ay sidoo wax wado
shanta kuwan maamul goboleedyadu way isdagaaleen siyaasiyiintu way isdagaaleen hala xiro xabsa la geliyo hala toogto halkaa laga dhaco ka hala yeelo wax ku soconaya lama ahan waagii la dooranaya wuxuu sheegay waxaasaa qabanaya kaabaa yeelaya ummaddu waa mideynaya ugaas baa noqonaya nabadoob baa noqonaya wixii hadda dhan waxay noqday waxyaabo feeg ah arrimaha kale xitaa ahayd qolooyinka kale waddanka saaraya uu ka saari waaye sanadka labaad baa dhacaya wax u hardaa 2 sano marka nin fashilmay buu ogyahay marka qofka fashilmay baa daacadiisu waxay tahay familkeedu wuxuu yahay qofka kala fiican waa yahay markaad leedahay madaxweynuhu uu fashilmay waxaad moodaa dadku inay su'aal isweydiinayaan madaxweynuhu waxa uu asmaro u arkaa horumarka dalka inuu ku jiro iyo hanaqaadka jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliya waad ogtahay asmara waxaa wada heshiinaya laba dawladood oo Soomaaliya daris la ah sida Eritrea iyo Djibouti iyo Ethiopia marka Axmed Madoobe Abdiweli Gaas Shariif Xasan Waare iyo Xaaf iyo Ethiopia iyo Eritrea farmaajo wuxuu arkaa horumarka inuu ku jiro Ethiopia iyo Eritrea inuu la heshiiyo maxaa ku jaban marka in sidaa la sameeyo oo shantan madaxweyne laga tilaabsado niyo marka aragtay maamul goboleedyada waddanka ka jira tusaale Puntland iyo maxaa la Jubaland iyo maxaa la sheegay qolooyinkan galmudug waxay leeyihiin xayabo bad bay leeyihiin qaar baa dekada leh qaar baa dekada dhisanaya competition baa kaga dhaxeeya iyaga iyo maxaa la sheegay Eritrea so meesha garab siin lahaa qolooyinkan la heshiiyo sameyn lahaa dekadaha garab weyn ka qaadan lahaa buu waxaa heshiisina uu leeyahay Eritrea Djibouti Eritrea Djibouti da heshiiyaan Ethiopia wadamo nabad ah way competitionkii Soomaaliya hadda marka kugu wuxuu ku soo xirtay Asmara Soomaaliya baa dhibaato ku tahay Djibouti waliba inay Ethiopia xagaas aado qolooyinka dadka xaga heshiiyaan haday si heshiiyay saddexdaasna competition weyn baa naga dhaxaya heshiiyaan maxaa la sheegay iyaga ku tirsanaan doona anaga wixii maamul goboleedyada isfaham weyna maraakiibteena waxaa laga soo rarayaa Asmara marka waxaa aaminsanahay ninkan siyaasadda waddanka dhisida iyo hagaajinta waddanka aad buu u fashilmanayo aad buu u mahadsan yahay dhegeystayaasha weli waxaad degeysanaysaan barnaamijkii subax wanaagsan oo qayb ka ah barnaamijyada aad ka dhegeysan karto Saadaal Production oo kamid ah warbaahinada xorta ah isla markaana haddii aadan joogin Koonfur Afrika maadaama xarunteenu ay tahay Koonfur Afrika waxaad naga dhegeysan kartaa channelka Saadaal Production si aad barnaamijyadeena u dhegeysato ku biir channelka Saadaal Production oo qoraalka magaca ku qoran saddexda mas'uul ee sawiradooda aynu adeegsanayno saaka barnaamijkayga subax wanaagsan ayaad kala socon kartaa barnaamijyo kala duwan oo adiga ku raali gelinaya qofka ku xiga salaamu calaykum subax wanaagsan السلام ورحمة الله وبركاته. walaal subax wanaagsan soo dhawo aragtidaada maxay kula tahay fakarka Axmed Macalin Fiqi oo aaminsan yahay oo ah madaxweynaha Soomaaliya shan madaxweyne oo maamul goboleed ayuu heshiisiin waayay sidee Eritrea iyo Djibouti ku heshiisiin karaan maxay kula tahay Abdullah warka di aan isku day qof walba fikir ay leeyahay maxaa farmaajo oo madaxweynaha dalka shantan madaxweyne maamul goboleedyadana waxa waaye waa dad ayagoo muhiim ah laakiin hadii loo fiiriyo fikir ahaantayda inuu heshiisiyo Djibouti iyo Eritrea waxba kuma jabnaan qaba aniga marka micnuhu waxaad kala jeedaa shanta madaxweyne inuu ka tilaabsado oo waxba ka soo qaadin oo muhiimad gaar ah siiyo Eritrea ayaad aaminsan tahay inay kaga wanaagsan tahay sheekada Kismaayo ka socota marka halka balfasil oo ummadda u bayaari galmudug Puntland Hirshabelle iyo waliba Koonfur Galbeed waxay kaga muhiimsan yihiin dawladaha Ethiopia iyo Eritrea warunta Soomaalida way maamaad waxay dhahday xoolo cararayo wala soo celi kara laakiin dad cararayo lama soo celi karo haye anu waxaan u arkaa shanta maamul waliba xataa waa si kala kulliin waxa uu daran labada oo ka soo jeeda Cabdullah Farmaajo yaad kala jeedaa waxaan kala jeedaa Abdiweli Gaas iyo Nicolas Axmed Madoobe haye labadaas ayaana horinayo dabka labadan kale ee mataqaana saddexda kale badhe Sheekh Shariif Sakiin iyo dii la yiraahdo Waare iyo Xaaf waxaad moodaa in xogay seeftoodu ay yar qaldad yar qarsan tahay laakiin ragga seeftoodu banaanka taalo waa ninka martida loo ahay dagaalka mataqaana kula jira dawladda
dowladda haddii uu run sheegayo maxamed cabdullaahi farmaajo hadda wuxuu ku maqanya waa shir maxaa la yidhahdaa nabadayn dibadda waa qof daris waa dowlad dariskeena maanta haddii Eritrea iyo Djibouti ay heshiiyaan maslaxa noogu jirto anaga ahaan Soomaali ahaan sharaf magac ayaa kaasoo gaaray magaca Soomaaliya marka ninka dilaya ee dibadda inaad wax ka noqoto ka dilaya gudahana waxa uu damacsan yahay ayaa ka weyn ma u malaynayo marka in maxamed cabdullaahi farmaajo ama dowladda mataqaana maanta hogaaminayo ay qalad tahay in ay heshiisiiso Djibouti iyo Eritrea waayahay shanta madaxweyne shacab ay hogaaminayaan shantooda kaliya maaha ummad Soomaaliyeed baa ku nool magaalooyinka Puntland magaalooyinka Galmudug magaalooyinka Hirshabelle iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed iyo magaalooyinka Jubbaland marka dadka reer Jubbaland iyo kuwa Puntland iyo kuwa Koonfur Galbeed iyo kuwa Hirshabelle iyo kuwa Galmudug ma waxaynu dhihi karnaa waxa idinka qiimo badan kuwa ku nool Asmara iyo Djibouti lama qabaan fikir ahaantooda ama dad ahaantooda lama qabaan raggan hadeertaan maamul goboleedyada madaxda u ah horumarka dunida ama horumarka Soomaaliya inaysan ku qanacsanan xataa waxaad ka dareemaysaa meelaha ay ka taliyaan nin walba meesha uu ka taliyo bal isku day horumarka laga gaaray Cabdullaahi xogaa maanta marka uu fiiriso uu dheer waqtiga uu hadda madaxda macnaha ay jirto Puntland ayaa u dheer waqti ahaan ay jirto ilaa 20 sano hadda ay jirtaa haddii loo fiiriyo madax badan ayaa soo martay oo isbabadashay laakiin haddii la fiiriyo wadciga maanta ay taagan tahay nin walba meeshu positionka uu markaas qabto inuu ka amba qaado oo kaga wareejiyo rag kale ku wareejiyo oo ku gaaro ana dartaa position alice inay ka tahay maadaama siyaasad ahaan ay ka sii dhamaaso waqti lagu cusboonaysiisanayo waayahay marka ugu dambeyn dalka iyo dadka Soomaaliyeed Asmara iyo Kismaayo labada shir ee ka socda ummadda Soomaaliyeed iyo dad ugu jirta makan Asmara mase kan Kismaayo labadaba dambaa ku jirto maxaa Cabdullaahi hadduu meel ka baxo uu heshiis u aado waxaa laga rabaa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga inay ayaguna baxaan ay wax ka soo maxaa la yidhahdaa maslaxadda ka raadiyaan maamul goboleed hadday wax ka qalad yihiin hadday dheef raadinayaan iyo hadday mataqaanaa kursiga mar labaad inay ku laabtaan ay doonayaan iyo haddii ay mataqaanaa Soomaalinimo aysan doonaynin dantooda ay raadsanayaan nin dan raadinayo dan Soomaali حبل لما ويلهين أبو دقيستاسي ومهتسين يحي inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii subax wanaagsan aragtida shacabka hadalka xildhibaanka ayaan hordhignay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi wuxuu yiri farmaajo wuxuu la heshiiyay waayashan madaxweyne sidee buu Eritrea iyo Djibouti u heshiisay kara arintaasi maskaxda xildhibaan Axmed Macalin Fiqi waa gali weysay qaar kamid ah shacabka Soomaaliyeed ayaa aragtidooda dhiibtay ummad kamid ah dadka in dhageystana waxay cadeeyeen inuu xildhibaanku ku saxay yahay qaar kamid ah dhageystayaashana waxay cadeeyeen inuu xildhibaanku ku qaldan yahay hadaba dadka isoo wacay barnaamijka subax wanaagsan ka qayb galay waxay noqdeen kuwa ku jaha wareeray siyaasadda dalka waxa yeelay qaar kamid ah dhageystayaashu waxay aaminsan yihiin Ethiopia iyo Eritrea inay ka wanaagsan yihiin madaxda maamul goboleedyada dalka qaarna waxay leeyihiin kuwan ayaa wanaagsan jaha wareerka shacabka iyo habka siyaasadda dalka ayaa ummadda Soomaaliyeed waxa ka muuqanaya isbedelo noocaas oo kala ah hadaba doodaheena si aad ula socoto fadlan ku biir channelka Saadaal Production waxa yeelay waa halka aad ka dhageysan karto barnaamijyo kale oo xiiso badan wali farka ma qodna barnaamijyo fara badan ayaa idinku soo maqan ku biir channelka Saadaal Production si aad ula socoto doodaheena dhinaca Facebook waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadka iga dhageysanaya Saadaal Production channelkaasi barnaamijyo kale ayaa idin haya laakiin reer Facebook waxaan idin leeyahay social media qaybta iga dhageysanaysa Saadaal Production ayaa dood xiiso badan hadda ka jirta oo ku xigta oo runtii kamid ah waxyaabaha wacyiga ee ka jira siyaasadda dalka Soomaaliya ku biir channelka Saadaal Production adigoo isticmaalaya YouTube channel marka aad gasho YouTube-ka ku qor Saadaal Production
production kadib waxaad dhegeysan doontaa barnaamijyo kale oo la mida barnaamijka aroor walba aad dhegeysataan ee la yiraahdo subax wanaagsan barnaamijyada soo socda saacada kadib waxaan qaban doonaa dood kale oo aad u xiiso badan laakiin waxaad dhegeysan kartaa marka aad ku biirto channelka Saadaal Production inta ka horeysa reer Facebook markuu live ku dhamaado barnaamijka waad way doontaan ku biira Saadaal Production waa channelka adiga maqli karto subax wanaagsan